Kusudo Top English for You. Waxaan ku wadaa Grammar Unit 4. haddii aan bilaabo possessive adjectiveska waa ashyaada sheegta shayga qof leeyahay. Pronounska ama damaa'irta sheegta shay qof leeyahay. waayahay tusaale haddii aan tiriyo possessive adjectiveska waa erga my, your, his, her, our, and their. tusaale ahaan ergan waa possessive adjective my, your, his, her, our, their are possessive adjectives. waa sifooyin tusaaleya lahaansho. haddii aan fasiro oo soomaaligooda aan sheego my waa wixayga, your waa waxaaga, his waa wixiisa, her waa wixeeda, our waa waxeena, waxaan leenahay theirna waa wuxooda. waayahay waxaa jiro oo u eg subject pronoun. subjectiga lahaansho ma tusaaleeyo, wuxuu tusaaleeyaa qofka ayuu sheegaa. waxaan leeyahay I aniga, you adiga, he asaga, she iyada, we anaga, they iyaga. so meeshaas waxaa ka fahmi kartaa inuu farqi jiro. possessive adjectiveska my, your, his, her, our, and their lahaansho ayay tusaaleeyaan. are, you, we, they, he, she, itna dadka ayay tusaaleeyaan ama ashyaada idaa ka maqan. waayahay waxaan leenahay possessive adjectiveska ayaan xoogga saaraynaa. this is my bag, this is my bag, tan waa boorsadeyda. this is your mother, tan waa hooyada. this is okay his house, kanina waa gurigiisa. waayahay this is my bag, tan waa boorsadeyda. this is your mother, tani waa hooyada. this is his house, kani waa gurigiisa. this is her bag, tani waa boorsadeeda. this is our mother, tani waa hooyadeen. this is their house, kanina waa gurigooda. complete the sentence, jumladahan dhamaystir. hello, I'm John. waa ku salaamanig John ayaan. what's your name? adiga magacaa. okay halkaas waxaa gelaya ereyga yo. waka waxaan leenahay what's your name? magacaa. 2 Linda is a student. Linda waa ardayad. halkaas maxaa gelaya her school is in Rome. iskuulkeeda Roma ayuu ku yaalaa. Ben and Carl are singers. Ben iyo Carl waa heesayaal. okay their band is great. kooxdoodana waa koox fiican, saas ayay leeyihiin. waayahay and 4 we are students. inaga arday ayaan nahay. our school aan leenahay this is our school, kanina waa iskuulkeena. waayahay aan leenahay possessive apostrophe esta waxaa la raacsiiyaa haddii jeeraale nounska ayaa gadaal lagaga daraa, then shayga qofku lahaa ayaa la raacsiiyaa. so maxaan samaynaynaa? waxaan leenahay apostrophe s shows waxay muujisaa. apostrophe s shows waxay muujisaa possession, lahaansho ayay muujisaa. okay this is Henry, kani waa Henry. this is his brother, kanina waa walaalkiis. so waxaa u baahannahay maanta waxaa maqan Henry. walaalka oo keliya ayaa joogo. qof inaa u sheegtaa lagaa rabaa ninkan Henry ayuu la dhalayay inaad dhihi karto. so maxaan leenahay this is Henry's brother. Henrygii ayaan waxaan ku daraynaa apostrophe s, then brotherkii ama shayga uu lahaa ayaan raacsiinaynaa. this is Henry's brother, kani waa Henry walaalkiis. waaye apostrophe s taasi equal waxay la mid tahay the brother of Henry. adigoo yidhi brother of Henry, adigoo dhahoo kale waaye. waayahay waxaan leenahay this is Arika, tani waa Arika. this is her computer, kani waa computerkeeda. this is Arika's computer, kani waa computerkii Arika. waxaan leenahay Arika way maqan tahay. computerka oo keliya ayaa yaallo. qof inaa u sheegto computerkan Arika ayaa iska leh inaad dhahdaa lagaa rabaa. so maxaa samaynaa? Arika soo qaada apostrophe s ku dare shayga ay laheed ayaa raacsiinay.
this is Arika's computer kan waa computerka Arika way apostrophe s ta equal waxay la mid tahay the computer of Arika waxay sheegay computerkan Arika leedahay apostrophe s sheegi doontaa okay 2 apostrophe s ka is also the short form of is sidoo kale waa short form ka of is markii la soo yaray tago oo contraction loo sameeyo ayaa la isticmaalaa he is a bank manager apostrophe s ayaa ku jirto is ayaa laga keenay waxay la mid tahay he is waxa uu yahay okay she is my daughter iyadu waa gabadhayda she's waxa ku jirta apostrophe s so she's is equal she is waxa ay tahay ay macno tahay okay number 3 is or possession waxaana is miya masa oo waa possession lahaansha ay sheegay apostrophe s meesha ku jirto waa exercise ka dabcan okay number 1 Sarah's married Sarah way guursatay Sarah's married Sarah way guursatay 2 marka apostrophe s ta meesha ka muuqata Sarah ku jirta waa verb to be is okay 2 Tony and George are Emma's sons Tony iyo George waa Emma wiilasheedii waa possession apostrophe s ta ku jirta marries Amy Sandela number 3 Grace's sister aren't married Grace walaalaheed ma aysan guursan Grace apostrophe s ta saaran waxay tilmaamay lahaansho ay tilmaamay 4.3 huwa plural nouns ka waxaan leenahay most plural nouns inta badan magacyada pluralka waxaad ku dartaa s ku dar in plural xagga wadarta waayahay computer waa hal computer computers waa computer school waa hal school schools waa schoolo okay nouns magacyada that end in kuwaas oo ku dhamaanayo s double s sh ch at es ku kordhi sida ereyga address waxa u dambeeya double s plural markaa ka dhigay addresses ciwaano ayaan leenahay address ciwaan addresses ciwaan watch saacad watches saacado ayaan leenahay 3 some nouns that end in y magacyada qaar oo ku dhamaanayo ereyga y change to ies waxaad u bedeshaa ies markaa plural ka dhigay sida university jaamacad y ayaa u dambayso consonantina waa ka horeeya so way bedelmi karaysaa waxaan dhahaynaa universities jaamacado way family y ayaa u dambayso consonantina wuu ka horeeya saa darteed way bedelmi kartaa waxaan dhihi karnaa waxaan dhahaynaa families ayaan dhihi karnaa waydan tuuraynaa families ayaan leenahay way waxaa noo xigo some nouns that are irregular magacyada qaar waxoogaa waa irregular oo ku imaan maayaan nidaamka saxda sida child canug esa ku darin child sa dhihin waxaa dhahdaa children saasay plural ku noqonay man rag waxaan leenahay mean man qof rag ah mean rag oo dad badan raga macnaha person shakhsi make waxaa samaysaa the words erayadan plural ka dhig ka samee number 1 business women gabar ganacsata ah waxaan dhahaynaa qaabkan waxaan leenahay business women ayaan leenahay dhawaqa waxaa yar isbedelaya waayahay house too waxaan leenahay houses party waxaan leenahay parties waayo u dambayso waa la tuuraa consonant ayaana waa ka horay markii la tuurayo sandwich ch u dambayso sandwiches ayaan leenahay camera cameras ayaan leenahay 4.4 halkaan waxaan ku qaadanaynaa half and has way half is an irregular verb half waa ficil irregular subjectiyada qaar wuxuu sii doonaa ereyga half subjectiyada qaarna waxay qaadanayaan has okay I have a new car gaari cusub ayaan leeyahay you have a big house guri weyn ayaan leedahay we have a new car gaari cusub ayaan leenahay they have a big house guri weyn ayay leeyihiin waayahay she has a new car
he has a new car ka hormari. He has a new car. Gaari cusub ayuu leeyahay. She has a big house. Guri weyn ayay leedahay. It has a big house. Guri weyn ayay leedahay. So, subjected he, she, it sida hortaada ka muuqato waxay qaataan erayga has. Waa goorme waa marka ay yihiin positive sentences oo keliya. Haddii negative iyo question timaado waa isbedele oo waxay ku laabanay meesha ka timid oo half ah. Saa ula socdo. Thank you. Complete the sentences jumladahan dhamaystir bal adoo adeegsanayo wixii lagu soo sheegay. Waxaan leenahay half wixii plural ah iyo erayga I. He has waxa ku dartaa wixii singular ah. Subjectiyadaasna waxay tilmaamayaan dabcan singular. He, she, it. Way. Ali and Mona waa laba qof. Ali iyo Mona have a son. Wiil ay leeyihiin ama wiil ayaa u jooga. So meeshan ma yaala pronoun dad magacyadooda ayaa yaala Ali iyo Mona. So waa waxaan sameynaynaa plural waa tirsanaynaa plural wayaan dhahaynaa. Way. Bawel has a job in Paris. qaabkaas ayaan uga shaqeynaynaa. Number 3, my schoolkayga maxaan dhahaynaa has ayaan leenahay schoolka maadaama hal xaba u yahay. My school has 20 computers. Schoolkayga 20 computer ayuu leeyahay. So waxaan leenahay erayga half si fiican inaan u fahnay ayaan rajeynaynaa. wuxuu noqodaa half iyo has ayaa ka dhambalanta. macnaheeduna waxa lahaansha ay tusaaleysaa. Okay, I have waxaan leeyahay new car. I have a big house. Something. Okay, thank you very much. waxaan rajeynayaa inaad fahantay. guul ayaan ku rajeynayaa. fadlan haddii videogan kusoo gaaro dhawow waa channel loogu talagalay barashada luqadda Englishka in lagu soo bandhigo. waxa kale wuxuu leeyahay channelka qayb conversations uu leeyahay. isla unit 4 kana qaadatay grammarka ku qaadatay conversation aan ka dhex bixinin oo waxyaabo dilqaaf aan lahaynin oo exactly